nebi idriis waxa uu ahaa nebigii saddexaad ee uu ilaahay arlada u soo diray. nolol ayuu nebi aadan ku soo gaadhay isaga oo 694 sano jira, waxaana uu la noolaa ilaa 306 sano maadaama uu aadan ku geeriyooday 1000 sane. waxa uu idriis ahaa ninkii ugu horreeyay ee qalinka wax ku qora, sida oo kalena daah furay sida maryaha loo talo iyada oo dun iyo dhogorta xoolaha la adeegsanayo, maadaama oo ay waqtiyadaas dadku hargaha maryo ka samaysan jireen. waxa kale oo uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee cilmiga engineerinka dunida ku soo kordhiyay. noloshiisa intiisii dambana Masar ayuu ku qaatay, isaga oo ku lug yeeshay ilbaxnimadii iyo xadaaradii ballaaneed ee Masaarida. waxaa la sheegay in idriis 72 af uu ku hadli jiray si uu 12 qowmiyadood dacwadda u gaarsiiyo. nebigan oo dhammaan kutubta samaawiga ah lagu sheegay taariikhaha iyo sooyaalka Masaaridana si weyn uga dhex muuqda, waxaa lagu tilmaamaa in uu ahaa nin aamusnaan iyo xikmad badnaan caan ku ahaa. waxa uu nebigani u dhintay si ka duwan sida ay nebiyada kale iyo guud ahaan dadka oo dhammi ay u geeriyoodaan. mar ayuu damcay inuu sii kordhiyo khayrka iyo acmaasha wanaagsan ee uu Eebbe dartii u sameeyo. waxa uu jeclaaday in cimriga loo kordhiyo si uu intaas acmaal fara badan ugaga faa'iidaysto. maadaama oo ay nebigan malaa'igta si toos ah isku arki jireen, waxa uu mid ka mid ah malaa'igta ka codsaday in uu samada geeyo si uu ugu cibaadaysto, isla markaana uu wadka ama malagga nafta qaada uu ugala hadlo sidii cimriga loogu kordhin lahaa. waa uu fuliyey malaggii codsigii nebiga, waana uu qaaday. malaggii sidii markii uu samada afraad marayay ayuu la kulmay malaggii nafta qaadi jiray oo ka soo daadegayay samada shanaad, waxaana uu u sheegay fariintii uu idriis soo faray. isla markii uu arrintaas maqlayba su'aal kale ayuu malaggii dib u weydiiyey oo waxa uu ku yidhi idriis halkuu joogaa. isna waxa uu sheegay in uu sido. malakul mawdkii wuu yaabay, waxa uu yidhi imika ayuu Eebbe soo amray in aan idriis nafta samada afraad kaga soo qaado. anna waan yaabanaa oo waxaan islahaa sidee ayaa qof dhulkii jooga samada afraad nafta loogaga qaadi karaa. sidii ayuuna Eebbe idriis ku oofsaday, waxaana ay culimmadu qisadan u daliishadaan aayadda uu Eebbe yidhi warafacnaahu makaanan caliyyaa.